saboolsanaa madaxda caalamka. ninkaasi wuxuu lahaa baabuur duug ah oo uu haystay in ka badan 30 sannadood. wuxuu deganaa guri yar oo ku dhex yaala beertiisa. cuntada ay isaga iyo xaaskiisu cunaana waxa ay ka beeranayeen beer yar oo ay iyagu leeyihiin. xataa intii uu xilka madaxweynenimada hayay ninka noloshiisa waxba iskama bedelin. Jose Mujica wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee dalka Uruguay. toddobaadkan imika dhamaadayna wuxuu ka digay xil kale oo uu ka hayay dalkaasi. ninkaasi wuxuu hore u noqday wasiir, waxaanu noqday madaxweynihii 4aad ee dalkaasi yeesho sanadkii 2010. lacagta uu mushaharka u qaato markii uu madaxweynaha ahaa waxay ahayd $12,000. hase ahaatee 90% lacagtaasi wuxuu siin jiray dadka masaakiinta. wax ka yar $1,000 ayaa u soo hari jiray isaga iyo xaaskiisa oo ay bisha ku noolaanayeen. markii uu xilka madaxweynaha ka degay wuxuu ka sii tirsanaa mudanayaasha golaha guurtida ama odayaasha ee dalkiisa oo uu xubin ka ahaa. sheekadan waa aad u xiiso badan. waxa halkaa inooga sii anba qaadaya Xuseen Barre Aadan oo haatan bay stuudiyaha igu weheliya. Xuseen, mahadsan Sahra. sheekadan oo ah mid aad u xiiso badan waxa weeyaan madaxweynihii ugu saboolsanaa dunida. soo dhan tahay marka bas madaxweynayaasha la eega si saboolsanaa. madaxweynayaasha dunida jooga madaxweynihii ugu saboolsanaa waxaana magacaasi lagu bixiyay intii uu madaxweynaha ahaa. wuxuu ahaa nin ka tanaasulay wax walba oo ay madaxtooyadu leedahay, ha noqoto aqalka madaxtooyada, ha noqoto gaadiidka madaxtooyada, ha noqoto ilaalada. wax walba uu ka tanaasulay. beer yar oo uu leeyahay oo magaalada agteeda ku taala ayuu deganaa. halkaasuu ka soo shaqo tagayay. wuxuuna wataa gaari uu wadan jiray ilaa 80-aadkii. waxa la Jose Mujica waa madaxweynaha dalka Uruguay oo imika isagu howlgab noqday. salaasadii aynu soo dhaafnay ayuu khudbadiisii ugu dambeysay ka jeediyey golaha guurtida oo uu muddo badan xubin ka ahaa. marka madaxweynena uu ahaa golaha guurtidana wuxuu ka ahaa xubin buu ka ahaa. midda kale intuuna madaxweynaha noqonna wuxuu ahaa nin mucaarada oo dhinaca bidix ah oo xisbiyadan hanti wadaagga u badan. Jose wuxuu caan ku ahaa inuu ahaa nin aad u hadal cadcad oo aad u hadal taagtaagan oo hadaladiisu aan ka gaban xaqiiqada. markii uu khudbadda jeedinayay ayaa waxa uu soo bandhigay 2 arrimood oo aad u xiiso badan. wuxuu sheegay inuu ka tanaasulayo dhammaan wixii gunno ah ee loogu talagalay qofka xubinta ka ah guurtida ee howlgabka loogu talagalay ama madaxweyne ka soo noqday. wax alla wixii lacag ahayd mansibkaasi uu lahaa ee loogu talagalay inuu noloshiisa inta kale ku qaato uu ka tanaasulay. wuxuuna sheegay inuu siyaasadda hadda hagsan doono ama uu joojin doono maadaama uu isagu sheegay dagaalo badanna uu soo galay uuna soo daaray. da'diisu waa imsashir marka xisbino waa 83 jir. marka waxa kale uu khudbadiisa ku soo bandhigay maadaama intii uu siyaasadda ku jiray uu aad hadal cadda. qof walba oo ay murmeen oo uu aflagaadeeyay ama wax ka sheegay wuxuu ka codsaday inuu raali geliyo. cafiya buu yidhi saamaxnaakum. cafiya buu yidhi. marka dadka ay isku dhaceen waxaa kamid ahayd madaxweynaha dalka ay dariska yihiin ee Argentina oo iyadu ahayd waqtigaasi haweeney. wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar duq ah. marka wuxuu ku tilmaamay inay tahay habar asaasaqday oo aan siyaasadda waxba kala socon. markay xilka haysay. kaaga sii darane odaygeeda mudanaha koobaad ee wadanka Argentina. marwada koobaad hadii la maqli jiray isagu wuxuu ahaa mudanaha koobaad. mudanaha koobaadna waxaa dhacday inay isku dhaceen isla laftiisa mar ay siyaasadda isu qabteen. wuxuuna ahaa mudanahaasi isha bidix ayaa xoogaa wax ka qabay. marka wuxuu ku tilmaamay inuu qof cawaran yahay, siyaasaddiisuna saas u cawaran tahay. qoyska cafis buu ka dalbaday iyo dad fara badan oo dhinaca siyaasadda maadaama sidaan kuu sheegay uu ahaa nin aad u hadal la kulmay. sanadkii 2016 sidoo kale waxa isku dhacay madaxweynaha hadda ka taliya dalka Venezuela Nicolas Maduro. wuxuu ku tilmaamay mad garanaysaa wuxuu ugu yeeray inuu yahay orgi waalan. oo markaan meel la ka joogsanay. marka maadaama godobahaas fara badan oo dhinaca hadalka u galay wuxuu go'aan ku gaaray inuu dhammaantood raaligelin weydiisto. Mujica waxaa la noolayd intii uu talada hayay xaaskiisa oo iyaduna ahayd siyaasiyad isla markaana ay ka mid ahaayeen oo soo wada dagaalameen oo ninkani jabhad buu ahaa markiisa hore. marka jabhaday kusoo wada jireen dagaalay soo wada galeen laakiin ugu dambeyntii waxay isguursadeen 2005. marka xaasaab leeyahay ninkan yiri mushahar qaadan maayo madaxtooyada degi maayo gurigayga beertaasu ku oolaya cuntadayda anaa beeranaya. ninka saa u fikiraya xaaskiisa iyo marwadiisii kooban neena yabaalin maysan ku sheegay gabadhu waa jabhad bay ahayd. waxay ahayd naag mowqif leh oo ka go'day nolosha iyo dhaqdhaqaaqa adduunka isla markaana u go'day siyaasadda hanti wadaagga. marka iyadaaba ku dhiiri gelisay inuu ka tanaasulo waxyaabaha badankooda wayna ku go'taagantay. marka taasuu nasiib u helay. caruur ma leeyahay? maya wax caruura ma u dhalin. xaaskiisu waa imsajiriyana wax badan kama yara iyada lafteedu waa 70 jir. waan gartaa. marka
nolosha waxay kusoo dhamaysteen halgan iyo siyaasad. Arrinta la yaab kale uu sheegay waxa weeyaan wuxuu yidhi inkastoon daalay oo aan da' noqdo weynaaday haddana maskaxdaydu ma gaboobin, waan ku darsan doonaa wixii fikra layga baahdo iyo wixii dooda timaada dhinacayga qaadan doonaa buu yidhi.